السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلات وحل بنتدي أو وضع وراديات مهمة وحن قلبت يدين وضع نكي على ديراها بوسكي أو كردنتي أو اللي يرنين انت لو مقعابي واسكديدي dad shacab oo kaagdhow ayaa hadeertan message ahaan igu soo diray waxaan kaloon idin hayaa 13 dhagar qabayaal oo loo diyaariyay inay isqarxiyaan oo laga soo dhaadhiciyay dad shacab oo kaagdhow soo sheegay digniino waaweyn qaraxyo waaweyn ay nimankii soo wadaan tabar kalena way ka dhamaata ummadda Soomaaliyeedna inuu diyaar garowda la rabaa ayadoo lala dagaalayo hadii dagaal looga hortago oo la fashiliyo meel walba ku jiraan qarax uma suurtoobi doono laakiin hadii la nasiyo oo laga haro qarax uu u suurtoobaya runtaan sheegaynaa galabta daacadan u hadlaynaa ilaahina waa ka cabsanaynaa dad goob joogayaala oo ka agdhawaa ayaa waxay soo sheegeen 13 wiil oo dhagar qabayaala oo caruurta la qalda ah inay ka dhaadhiciyaan inay qarxiyaan meel ay ku socdaan iyo meel ciyaalkaas loo diray lama yaqaan waxa la soo sheega 13 wiil oo meel loo kala diraya aan la aqoon in lagu tashkiiliyay meel u dhaxaysa Hiiraan iyo Bakool waa meel hebla anigu idima dhihi kara laakiin dad shacab ah ila soo wadaagay Hiiraan iyo Bakool meel u dhaxaysa lagu tashkiiliyay 13 wiil Muqdisho aadi doonaana Hiiraan aadi doonaana galgaduud aadi doonaana Allahu a'lam laakiin se inay la tashkiiliyay laga dhaadhiciyay oo qaateen amarkaas la soo gudbiyay digniintaas ummadda Soomaaliyeed waa inuu u diyaar garowdaa dadku waa inay u diyaar garoobaan dhagar qabayaashii tabartoodu waa soo dhamaaday waa hinraagayaan odayaalay ka hadal siinayaan odayay tagtay anigoo beesho dudublo anigoo beesho maaragtay Saleemaana anigoo beesho Cayro anigoo beesho Sacado anigoo beesho Wacayslo halkaasii taaganta anoo beesho Abgaal halkaasii taaganta walaal cadiim markii odayga waxaan ku naqaan in maslaxad loo diro maslaxad tabartu markay soo dhamaato hadii dagaal la galo odaya loo diraa kala qaboojiya leeyahay beelaha ujeedka oday micnihiisu waxa waaye dhiig daadana inuu joojiyo dhiig ha naga daadinina ha naga joojiye waaye nimanka waa baryootan laakiin intee sanay dhiig daadinayeen intee sanay dad baabi'inayeen intee sanay dad ku kibraayeen galabtay halkaasaan ku qaabaa dhigaya warkayga oon dul fuulaya waxaan kaloon idin hayaa nimankii ayaka ahaa oo afka duubnaa ninkii hogaamiyaha ahaa oo cali dheere la dhihi jiray markuu rawaxay oo ku daayay oo dhulka ka hoos maray oo la duugay waxaa lagu muransan yahay ilaa hadeertaan geeridiisa in la shaaciyo oo dadka loo sheego oo nimanka ayaka ahaa dhowr gooray shir isugu yimaadaan ay ku kala kacaan sheegi mayna iyo waa sheegaynaa aakhirkii u dambeeyana waxay isla qaateen la yiri geerida inay sheegaan ninkii lagu bedeli lahaa ilaa la helayana geeridiisa aan la sheegin waxa galabta loo soo bandhigaa la yiri dad goob joogayaal oo shacab oo kaagdhow waxa loo soo bandhiga inuu xilkii cali dheere qaato kaba ku tukadan in la yiri anigu ma aqaan qabiilu yahay qolo u yahay ma aqaan kaba ku tukadana wuxuu yiri anigu bayraqdaar ay ugaarsan mayso baashaan la yiraahdo ii sheeg ee daroon ay ugaarsan mayso meeshaydaasaan ku jira xilka cali dheere oo halista ahana ma qaadi karo mahaygaasaan joogaa balaayadaasna ma qaadi karo wuu iska diiday nin kale la raadinayaa qolo u yahay iyo qabiil u yahay ciduu raba ahaa waxaan kaloo idin xaqiijinayaa shabaab kuwa aan raadinaysin kaliya inaysan ahayn oo ay guryaha la joogaan oo ay meel kasta la fadhiyaan oo ay shaah la cabayaan oo warbixinta ka gudbinayaan oo qolo walba walaal u malaysa ayakii ay kala bar noqdeen 13 sano ayay dadka tashkiilinayeen 13 sano ayay dadka ku dhex jireen sideed ula dagaali kartaa waxaad ula dagaali kartaa inaad ku dhiiratid aad ogaatid inaad dhibanaysid ilaahay subxaanahu wa ta'aala hal maalin nafta inuu ka qaaday waa inaad ogaataa ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu laba goor ku dilayna waa inaad ogaataa haddaad ogtahay nin dhimanaya inaad tahay haddaad ogtahay nin hal mar naftu ka baxaysa inaad tahay sifa ku cabsatid iyo sifa nin raga iyo shakhsi uga cabsatid male asaga qoriga wata asaga inuu wax dila rabo dhimasho ku soo talagala adiguna dhimasho u diyaar garow haddaad baryo ku raadisid nin aan baryo ka rabin kaama istaagayo iska dhici wax iska dheh ragnimadu saasi ahaan jirtay dhaqanku saasi ahaan jiray nin raguna saasi ku kala dambeyn jireen waligeedba waxaan marka dul istaagi rabaa maanta oo xaqiiqda aan rabaa inaan sheego
ciidamadii ugu badnaayay maanta waxaa laga dejiyey xalay shalay galab iyo maantay balad weyne nimankii xawaadlaha ahaa 300 oo askari iyo 400 oo askari ciidan lagu qiyaaso gorgor iyo haramacadaha la geeyay balad weyne waa loo hiiliyay gees kasta laga dhigay meel walba laga dhigay way joogaan magaalada dhameena waa diyaar cali jeyte waa darbigii hawiye ninkii ka hor yimaada oo hawiyana waxaan u naqaanaa shabaab kaalmeeye waa darbigii hawiye oo bilaabay inuu la dagaalamo صح يا قلب على شيء قفك وحتى فرك كتورو ما أنت على شيء تواسحين فرك قفك كتورو مقلي إن معركة اللي كلا شكية أو بلدوين قريح كذا عرق جونية اللي شكية أنا وده قريب مايو مقع هو يجود هانا وهلا لكن وحنا سنة ونسوي شيء دنيا نكي بوليس كحكومي بلدوين أو تليها بوليس كها بلدوين هيران أردن إن حرية هالمغلا waxaan maqloo kale ii sheekiina bad sugidana inuu xiran yahay shal gal Muqdisho inta looga yaray xabsiga labadiiba lagu tuuray oo shaki u yimid waxaan codsanayaa si hoose arintaas in loo baaro oo aan la isku farabaxsan si shabaab aysan nooga helin si shabaab aysan fursad nooga helin argagixisada saysan fursad nooga helin arintaas in la fariyo suuliyo oo la baaraan codsanaya aniga hadaan ahay afayeenkii beesha hawiye sida guudna u hadli jiray cali jeyte dambe masaarayo asagoo 4 bilood magaalada ka maqnaa ayaa qarax lala beegta asagaana lala sugay qaraxuna balweynu ka soo dhaxbax waxa aniga igu maqala oo la ii soo sheega oo dad goob joogayaal ii soo sheegan saraakiil ciidanka kamida inta lacag la siiyay ay buuntada ka soo gudbiyeen qabiilkoodana ma rabo inaan sheego hoosna inaan ugu fogaadana ma rabo buuntada inay ka soo gudbiyeen cali qaraxana oo kaydsanaa muddo 5 bari oo balweynu ku dhex jiray على شيء تمركو يمادنا لا سوغي تارجت ugu horeeyana على شيء تو aha aniga la iisoo gudbiyay qofkii iisoo gudbiyay waa qof maaragtay iigu dhaartay oo message dheer iisoo diray waana akhrin karaa message-kaas ayadoo qarax u dhicin ayaa waliba la iisoo gudbiyay oo la yiri taraagiye qaraxyaha ku diyaarsan meeshan ee Beledweyne leefafkaygiina waad arki kartiin dibaad u raadin kartiin waa ka soo hadla baabuur taraagiya oo Beledweyne lagu talagalay jirtaha iraaniga كنت شيء حقيقة شيء دا عذر وهذا على شيء مانتي نكي على دائرة بالانصدي أو كو وجسي أو قرقاب بالانصدي أو كو وجسي أو نكاليا بالانصدي إن وح الله وحي هالكاس كل هذا أو عيدنك مرال كود دسي أو ملك استتاجنا مانتي نكي سواه ويست نوعي هذا كمان بوت كم كل تمانينا وأنا وهليي صباحي أو سو استاجي إنه شباب إسكندرية إنه لنتو على شيء ترى وكتر قال ما نكرت شعل الجريدة مانتي لكن وحنديدية ننا ولا الكديجني سوي نادر كديجنيسي قولوا نحن كلنا الدجن إنه مرض هذه كوجود دوجو كبر مس كبرا إنه كاغا صور دحبة عندي درها عنك هلا بارو هلا فري سوريو قفك قلت كرنا قلت كيس هلا صاروا مقع هوية أنا قرا هوس وقد عماي مرة أكره هيليني تاسان تاسو سو جود بيا تلباد أنا قاعدين دول استاجرب حسن شيخ محمود إن وحو فريقان ديه مامل قبل ديدا دقالك الجوجلي أوفرا لعكستو سوق شكل بحوير عيدا كملتريا وحكستو أو أباهيين هلا قلب بحوير وحاج ما أنت دتشي إن قلها وسير هذا وأصلا رحفنيه أما أنت صحيح كدوجي وحا لدقال قلين دونا وميل والبوكا دقاق دونا عيدنك مع وسلي اللي يراهدي عيدنك الدولة أو إسلا السعودة لبضبا مع وسلي شرف وين قول وين مهد علم وين إلهي بمهد أسوغنته أيه وحي كسوهوين دقال كي عيال قوحلي أفكودن أيكا كوقرتي شباب نينكا براها بلشدة لوريتينيو أو سيديدا نين توقتي يو دارك كوكران سي توقتا كسي بدنا نين مع وسلي أها waxaa igu maqaalaa hadda ka hor inuu maaragtay oo dagaal ka qayb galin laakiin nin liifka yaqaan qoriga yaqaan oo ahaa ciilna uu qabay ayakuna afkooda ay ku qorteen inuu ninkaas dadkaas laaya xabad aan liif ahayn oo soo riday ayaka afkooda qortay waan idin soo daayay odayaasha laga hadal siinayo ma ahan odayaasha taqaaneen beelaha taqaaneen ma ahan waa odayaal ayaka dhaxdooda ay samaysteen oo xoog ku haysteen oo caruurtii ka dhex degantoo islaamiga ka dhex degan yihiin meelay aadaan aan aqoon oo ayaka afkoodii ku hadlayo weeyo waa ayakii
nuucii ayaka ahaa weeye waa ayakiyo sax weeye odayaal saxa oo la yaqaano oo kuwa taqaanin ma ahan kuwaan waa odayaal af duubkiya waa odayaal xoog lagu haysto nin walba odaygiisa wuu yaqaanaa dudubla laga hadal siiyo odayaal sheeganaya wacaysla laga hadal siin rabaa maanta ama berri waadna arki doontii waana la iisoo sheega aniga wacaysla cadde laga hadal siin rabaa waxaa laga hadal siin rabaa cayrka kaloo bariga dega waxaa laga hadal siin rabaa saruur waxaa laga hadal siin rabaa nimankaa la yidhaahdo in saleebaanka qaybtaas dega qolaba gooniyaa loo gelayaa waa tabartiyaa dhammaatay awooddii iyo rag iska dhicintii iyo baratankiyaa soo dhammaaday nimankii ayakaa afka duubnaa way u dhammaatay anigaan xil guntadaan oo la hadlaya wallaahi inaana been idiin sheegin ilaahina waa igu ogyahay maaseejyaa la ii soo dira masaajidya laga addimayaa la iga soo dhex waxa waa iyakama adinkoodii masaajidkooda iyakaas maaragtay masaajidooda ha iga soo dhex wacdeen laakiin beydka ilaahay waa beyd ilaahay meelku ku yaallaba waxay dheheen oo aniga igu leeyihiin haddaada shaqada ku jirta ka bixin xil guntadow shaqada aad ku jirta haddaada ka bixin meel alla meeshaad joogtaan aniga adigu isku arkayna soo dhowaada nin geeri ka cabsada maaha nin adinka in ka cabsadana maaha soo dhowaada soo orda haddaad isoo gaartiin oo meel walba igu soo gaartiin welcome intaa noolahay oo nafti igu jirto anoo ila dagaalayaan dhimanaya fakarkaygana isma bedeli doono ilaahay subxaanahu wa tacaala nafta hadduu ii deysto adduunkaana ilaahay wuxuu ii qora intaan joogi lahaa ka badanna iima qorin intaasna adinkaan ku bixinaya dowladaan ii dirsan shaksi kalaan ii dirin qofaan isoo dhex marin dadaan la dagaal nimankan oo waxay wallaahi igu billaahi igu tallaahi inaan qof bili aadan inta isoo wacay uusa idhihin nimankaan la dagaal ilaahay wuxuu igu og yahay anaa iskayga u maagay waa nacayba aanu qabo waa inta ay dad xumeeyeen aniga nimankan ismaana arag waddankoo nabada ayaan ka soo tegay waddankii markaan ka soo tegay asagoo nabada 2002gii waddanka markaan ka soo tegay ayakoo waddankii haystaan u laabta mar waddanka ayakoo haystaan hal mar u laabtay markaan u laabtana hooyadayoo jiranaan u laabtay allah u naxariisto oo dhimatay hooyo anoo daawo uga doonay suuqa bakaaraha aanin igu qabta ninkii markuu i qabtana baabuuraan furasaas u gelinayay baabuurkii anoo ag taagan oo inta i qabtay aw yiri baabuurka furaa intaada gelin bal waran waa istaagay waa naxay nimankana magacooda waa la ii sheegay maxaa rabtaa haa iri waa islaamkii iyo anuguba gaal maahayaan ku iri gaal maah iigu jir sheeko yaraan wadaa ibrahim waa kuu baahnaaye warbixinaan kaa rabaa iigu jir islaamkii waa maanaa gaal ahaan ku iri maya anugu kuma dhihin yiri maxaad soo doontuu yiri halkeesa ka timid waxaan ka imid aan ku yiri la foole meel la yiraahdo markaasuu yiri baabuurka furaha yaa la foole ka taqaana oo islaamka saar dadka degan oo dhana islaam anugu hadda nimanka iyo waxaas ma kala aqoon wuxuu igu yiri qof sheego ilaahay iyo nafta igliyaan ku dhaartay qof sheegu yiri oo galabta ku sii daayay mid aan islaha waa ku jira oo aan taleefankiisa haysan inta mid kale wacaan waxaan ku yiri nimankii ahayeen nin iga fujiyay ii raadi markaasaa inta mid la wacaa la yiri war ninkaan uu South Africa ku maqnaan jira war ninkaan waxba kama warqabo war ninkaan South Africa 10 sano ku dhawaad ku maqnaay daay war wuxuu og yahay male sidii uga soo fakada nimankii halkaas maraan isaragna maalina wasaaradda gaashaandhig anoo baabuur caasiya saaran oo baabuurta dhamaantay iska daayay ka u nacay baabuur bay ala saaran ay gadaal anoo saaran iga soo dejiyeen soo degay dheen wasaaradda gaashaandhig waa soo degay garkaasaan igu jirnaayo waxay dheen yuhuud maatay dheen yuhuud war yuhuud ma islaama waa tukada waa laga shuuraynahay dheen balaaya idinka shuuraysay nacaybkan u soo qaaday iyo dadka nacaybkii siday dadka ku samayn jireen nacaybkaas ayaan ka soo qaaday ilaa hadda igu jireen ummadda say u gumaadayeen beesha hawiyo shahaada loo qabanay kaligoodna waa kula dagaala waa ka xumaada oo Soomaali kala ah hadda shahaad loo qabanayn hawiyo kaliya shahaada loo qabta goormeen hooyada iyo aabaha islaamnimada igu dhaleen ya maanaaba gaal maqlaba qof Soomaali oo gaal miyaan weligay maqla noloshaydi ma maqal abadkay ma maqal qodhaaya xirada ilka aakhirka ma naqabata 13 sano ka hor in la yiraahdo hawiya islaaminaya nama qabato war Ibrahim inaad yaro macaan oo warbixinna waa ka rabay odayaashii ayaka ahaa iyo waxaad ii haysid dadka halkan ka dhageysanaa 500 qof ku dhageysanaysa u sii daa horta arinta cali dheere geeridiisa waxa waaye horta inay runta u badan tahay waayo waxa waaye ninka la yiraahdo waxa dad maqlayso socday iyo shifkiisu tibaraale ka waxay Soomaaliyeed tira horta meesha waxa ka muuqda laakiin waxa gooriyo soo kordhaysa geeridiisa aan ogeyn waa gartay
taas أنا وجود بقى wax weyn soo kordhinaysa anaa kuu sheegaya waxay soo kordhinaysaa soco wax weyn soo kordhinaysaa ta dhowr iyo 10 kun oo qof oo Soomaali qaba baalwa baal xabas ma dhamaane ninka la yiraahdo kuma ku dukada ninka la yiraahdo kuma ku dukada waa abgaal waa wacaysle waa niman la yiraahdo faqa Umar oo Iiraanka wacaysla oo wallahi Iiraanka wacaysla waaye Yusuf Ahmed Gacala la yiraahdo dad heer aleer oo soo qorahan arkay wali aleer ma tihin qalad meel ku dhashay baarti ama wadi jiray darawal caadi ah waxa jira wada iska shaqeeya deexda oo niyo hadda asaga xilkii diidaa la yiri oo afayeenkii shaqadiisu afyaan ma afyaan kuma fiicna ninkaas ma garabta waxa la maadaama ninkii dhintay shaqada si fiican u taqaan qabaal yiri wuu diidaa li afayaan nin war badan ku fiican moogta haye soo nin war badan ma armiya karo taas marka aniga nin dagaal horta waa yahay nin qajaceed waa nin kale ishiisa mudaamarna waa yahay laakiin dadka saas oo maano warka badan oo kala maahan dadka macnaha xanaaqa badan waayo maas marka saas ku fiican taas marka taas daanuga soo gudbo waxa way nimankaas horta waxaan arkaynay niman la yiraahdo taabga laakiin ku hadleen cad mudullood ay horta ka hadalsiiyeen daraad waa gartay gaal jacalay dhiga ku dhuftay si ku xijiyeen waa gartay gudubleen ku xijiyeen waa gartay maantana waxay shalay ay u digeen oo intii isugu yeereen ay yiraahdeen ninka la yiraahdo ilaa waa inaad berri isu timaadaan waa inaad hadashaan sawirra la idinka qaada live la idinka marabo waa inaad tiraahdaan mujaahidiintan garab taaganahay mujaahidiinaan nahay muslimaan nahay gaala marabno xasan sheekh waa murtad annaga dalkeena ka difaacayno inaad tiraahdaan la idinka rabaa amar lagu siiyo waa kuwa ku dhahan qabiilkee way waxa isla niman leeyahay waa gartay waa la ii soo sheegay aniga ma lagu sheegay warka soo gaaro leema waa soo gaaray in laga hadal siin rabo waxa isla maanta ama berri maanta yaa laga hadalsi hayo oo shirka loogu yeeray la yiri inaad hadalsiin la idinka rabaa wararkoodana kulli hadaysan un caawa ilaa caawa hadaan un la soo gelin oo la arag waxa waaye berri un waa in la arki doono aan rajeeyna waxa waaye waa in markaas sida banaanti qoftii in qashaabu yeeray shaabna oo dul joogana waxa waaye war uma kala uma furo inay una hadasho jira wixii dhaha la yiraahdo mooyee sax way wada kala uma banaana sax marka nimankaasna warkooda caawa amba berri hadee ilaa sadambe caawa ba aan la soo gelin ba amba xilliyada amba uusan ku jirinin berri waa la helaa wixii abdeedana insha Allah waa ka daba keeni doonaa insha Allah oo soo kordho hadii la yiraahdo waxaan rabaa su'aalan ku weydiinaya hadalkaaga adoo wata seedad u aragtaa odayaasha laga hadal siinayo ma awooda ku soo kordhayso ma tabara dhamaatay dagaalku moogtahay hor dagaalku waa xeelada badan yahay haye hal jahana looma dagaalamo waa gartay odayaashan laga hadalsiihayo barnaamijka la leeyahay dhowr wajiyo leeyahay mid waa cabsi gelin oo la rabo in dadka lagu cabsi geliyo midna waa barabagaando haayo la leeyahay la rabo in la yiraahdo war dadka meesha jooga waa dadkayni dadkii macnaha dhamaa macnaha dhimankii macnaha la wada safan hadii la dhameeyaan u talehayna meeshu ugu tagaynaa qorshe noocaas barabagaando laga leeyahay waa gartay miduna waxa waaye arrin la rabo in dadka la isku dhufto oo yara xoogaad Soomaalidu maadaama ay tahay dad aad ugu dheeray qadiyada qabiilka waa arrin la rabo in yara xoogaa xasaasiyad qabaa'il lagu sameeyo si fursad looga dhac raadiyo hadii yara xoogaa xasaasiyad qabiil ay meesha ka dhalato waa gartay marka arrinta odayaasha laga hadashay waxa ku jiro koos duugan arrimahaas oo dhamma koos duugan barabagaandooyin ku jiro qabaa'ilada la rabaa in macnaha yarada xoogaa madaxa la isugu gelsho ay isku mashquulaan meesha mashquul ka yimaado waa xaalado badan ku jiro laakiin barabagaando waa qaybo kamid ah dagaalada socdo waxaan kaloo rabaa inaan ku weydiiyo adaa iga xogaalsan dhulkan adaa iga aqoon og ciidankii xalay iyo hamin hore kala baxay oo u socday dhulka abgaal waxay meeshay gaareen oo hadda la soo sawiraayo waa halkee ni hawshaasu waana socotaa ولينا وقرشهاد ويدمنتهاي وانا لو غدا جرا inaan aad uga sii hor dhacno ma jecli laakiin insha Allah waxaan rajeeynaa wadaaniga hadii laga baxo wixii adiga oo macquulsan oo bulshada si toos ah loola wadaagi karo wadaaniga ma laga baxan rajeeynaa insha Allah taala waa gart marka inaan yara aad aan ugu sii fogaado mar arrintaas laakiin hawsha meel fiican ay maraysaa waa socotaa qabaqaabo fiican socoto hawshoodiga ilaa hadda saacaan sida loo rabay ku socotaa wali
nin jooga meeshii iyadaa heeda isoo wacaya hadalkaaga wada adiga ninkaana soo xiriirinayaas wado ka qaba dhib ma lahane insha Allah waxaan noo keenan aan si dastaa dhawaari waxaan kaa rabaa oo kale xog maxaa ka haysaa meeshaan la yiraahdo abaabulkii maaragtay galmudug iyo maadaama nin reer galmudug aad tahay iyo xaggaas dhankaas halo inta badan waryaa magacaas leema yiraahdee xil guntadaa la yiraahdaahe hadalka waa ku siinayaa ma hadda inaa qaadata rabtaa hadalka si inaa hadasho ma rabtaa qadkaa ka xun ibrahim soco sharmala insha Allah waa noo soo noqon doonyahay horta howlahaasu way socdaan sidan hadda aan magaalada xamar baan ku arkaynay oo qabanqaabooyinka badan uga socdaan qabanqaabooyinka xagga dhinacaas iyo galmudug iyo shabeellada dhaxana macnaha si isku mid ah qabanqaabooyinka hor wada socdaan haddaan wax isbedeli doonin insha Allah tacaala hiiraana maanta in sambaloosh iyo rag macnaha badan u tageen oo waa arkaysaan u maleynaa waxaan markaa insha Allah ku rajaynahay arrintaas inay si dhaba dawladuna ay macnaha ninka la ugu dhawaaqo doonto madaxda dawladda ugu sareyso madaxweynuhu ugu horeeyo adigu si damba xad oo macnaha ninka la yiraahdo waxa way furma dagaalka aan ka arki doono baan ka rajayno inuu si dhaba oo rasmi ah oo macnaha dagaalkan ugu dhawaaqo doono oo amri doono howluhuna ay xagga iyo inta ay macnaha Iiraan iyo shabeellada dhexe iyo galmudug intaba waxaan ku rajaynayaa baada aan ku helaynay inuu soo gaaray inay si dhaba isku mar ay wada bilaabo doonaan qabanqaabooyinku si hadda ku socdaa waa gartay intaasaan macnaha ninka leedahay hadda aan Ibrahim waa ku jiri kartaa rag kalena waa ku jiran maaragtay hadalkana markaa waa sii qaadan doontaa waxaan rabaa inaan caawo idiin iftiimiyo oo aan idiin sheego dadka sharafta leh oo xil guntada media ku xiran halgankan waa wadaynaa wuuna mira dhalay dagaalkan meeshuu ka bilowdana dadka bilaabay dagaal ay bilaabaan mira dhal la'aan ma ku soo dhammaado runtaa idiin sheegayaa caaway meel iiga qora shabaab nimanka la yidhaah ugus nimanka la yidhaah argagixisada 4 bilood 3 biloodaan u qabta macal odaga hinraagaya oo beesha beenta ka soo hadlaya macal ninka ka dhaadhacsan tahay shabaab ayadaa xoog yeelan doonta 4 bilood 3 biloodaan u qabta waxaan ugu qabtaan idiin sheegaya xasan sheekh maxamuud adduunka oo dhan ay u tagaa waxaa la dagaalkan jooji wuu diiday markii dambana waa ku taageernay dheheen waa ku garab taaganna haddaa adigu nimankaas u bareertay uuna ka adkaada adduunkii oo dhanaa soo ammaanaya ciidankii soomaaliyeed oo dhahaya soomaaliya waa ku qalad weyn aan ka galnay cunaqabataynta mar hore inaan ka qaadnay ahayd ciidan tayar ay leedahay nimankii dhammaa oo annaku diyaaradahanaga iyo maalkanaga iyo adduunyadana dhammaan ku bixin jirnay xasan sheekhaa daqiiqad ku soo qabtay meel kastay ka cabaadeen odayaalay ka hadal siinayaan ayakii is soo dhiibaayay waxaan kaloo rabaa inaan kugu bishaareeyo inta isu soo dhiibaysa in ka tiro badan aa inta baabuurta soo raacday ee haddana waddankii soo dhaafeen aan kugu bishaaraynayaa caawo wallaahi bilaahi tallaahi xarar dheer caawo waa idiin dhaartee waxaa ka bixi jirtaa 2 laangaruusal 3 laangaruusal aa ka bixi jirtay maalintii dhowr iyo 10 ka soo dhaqaaqda oo dhuumanaya jidka horaa laga soo qaadaa xamaray soo galayaan waa ka sii baxayaan ilaa intaan la ogaano waxay rabaan inay sii gudbaan Kenya South Africa meeshaan Ethiopia habqanka saas u yaacaya oo nimankii oo cararaya horta nimanku way dhamaan rabaan ninkii waxaa joogi kara aqli leh oo dadkiisa isku soo dhiibo yiri waa toobad keena laakiin ninka isu soo dhiibin oo awal la yaqaan inuu dadka cunayo ruugayo waa inuu sii cararaa sii gudbaa aniga xil guntada oo meel amaana jooga nimanka ii soo dhaaranaya adiga Soomaaliya jooga say ku yeelayaan ii sheeg ilaa aan kugu dhaarisay ku yeelayaan may soo gaaraan qor soo gaara may haystaan intaan tagaan waliba saan uga dhaxali karaa Soomaaliya oo Ilaahay igu og yahay markaan dhimanayaan ogaa kaliya Ilaahay inuu hal mar ay qaadayaan ogaa saanan uga dhaxali karaa hadday ay qabtaan xataa oo dhahaan soo ninkii wax naga sheegi jir maahay waa asaga yaan leeyahay gaalana tiin hortooda kala yahay ka qarin maayo iskama bedelay diinna ma haystaan 200 oo nin oo masaajid ka soo baxda ninka qarxinaya oo jimca soo takato tusbax wato oo ay weysadii u dhowran tahay oo Ilaahay baryaya ninka halkaas salaanta ku dhufanay hoteelka ugu soo galo maxaa naga dhaxeeya aniga isaga maxaa naga dhaxeeya ninka hal qabiil dilaayay
maxaa naga dhexeeya ninka hal qabiil dilaya dhowr iyo 10 sano oo aan qabiil kaleba aadayn maxaa naga dhexeeya oo hawiye iyo dul saaran iyo nimankaan raxweyn la yiraahdo iyo beeshaan kismaayo ilaa kismaayo bu'aalad beesha degto ogaadeen iyo hawiye isla degta maxaa aniga isaga naga dhexeeya isha maxaa naga dhexeeya waxba nagama dhexeeyaan diin nagama dhexayso waxaa naga dhexeeya inaan iska dhicino oo xaniye isaga dhicino markaa dhimanaysidna aad og tahay shaydaankana iska naartid ilaahayna aad baridid oo aad tukatid maalinta aad dhimanaysid meesha ku dhimanaysid sariirtaada hadday dagaal tahan way kuu qoran tahay ha baqin iska dhici nimanka qaado xasan sheekh maxamuud amarkuu bixiyey waxaad ogolaataa madaxweynahaaga amarkiisu inuu shaqeeyo ogolaad guusha afkiisa ka soo baxday oo ilaahay uu afkiisa ka keenay garab istaag ibrahim ku darso horta halguntadow horta qarala ku siiyo halgankana waxa waa ilaahay kula garab galay ilaahna kugu guulay insha Allah taala waqti dhowna guusha rajaheena culayskuna siisa banaan fudeeda ka dambeeyo waxaan rabaa wax arina dib ugu noqdo niman taliyaal ah oo shalay beledweyne macnaha ninka leeyahay ayaga iyo gudoomiyuhu ayu xoogaa hadalla isdhaadhaafsadeen hamarna in ay yimideen oo warku nagu soo gaaray adaatan aad waad ka hadlaysaa waxaan rabaa wax horta arinta ugu noqdo nimankaas waa la xiray si ay dhiga horta waxaa la yiri rag cadaalad waa sida oo shakalayaa Soomaalidu hore u tiri sax waxaan rabnaa horta nimankaas waxaan rabnaa cadaalad helaan waa gart cadaalada helaan markaan leenahay macnaheedu ma aha ayagu doodina difaacina laakiin cadaaladu sida banaan waxay tahay anigu haddaan dimbi galo oo aan qof muslim aan dilo ama aan shiriki aan la imaado waa labada dimbiyo ugu waaweyn islaamka dhexdiisa waa inaan cadaalad aan helaa sideen cadaalad weela ana dhibaato la imid waxaan cadaalad weeli karaa wixii aan xaq u leeyahay oo sharciga oo qabo inaan mara aan cadaalad weeli karaa laakiin aan wax ka duwan aan la igu sameeynin nimankaas horta waxaan rabnaa haddii raad soo galo oo raadba uu soo galo waxaan rabnaa horta inay sharciga ay maraan wixii ay sharcigaas ay ka helaan iyo inqaabta xeerka ay ka helaan ay maraan laakiin in ayaga laftooda aan la dulmin haddii laakiin nimankaas far wadi untuuna galay dabcan haddaan tuungeli lahayn lama xireen looma yeereen dacwadu sooma gasheen laakiin waxaa la rabaa in ayaga laftooda ay cadaalad helaan oo aan macnaha lagu xadgudbin haddii raad soo galo ama wax alxamdulilah arrimaha lagu sheega kamida ay soo galaan haba yaraadee saanu soo gashana waxaa la rabaa inay sharciga ay maraan hadduu inqaab noqdo hadduu dil noqdo haddii xukunka hor wuxuu noqdo wixii ugu yeeshaan inay ka helaan maxaa yeelay haddii la yiraahdo miskiina meeska la fuula leh ee dadka macnaha xoogaa yarada iska liita iyo kuwa tabar yar kaliya macnaha la dhibaateeyo dadka xoogaa la isleeyahay ama xoogaa beelweyn ku tiirsan yihiin ama xoogaa ay alxamdulilah mas-uul weyn ku tiirsan yihiinna loo taqfal dureersho nabad gaari mayna adeer nabadna heli mayno saan shabaab ninkay soo gasho ilaahow ma xildhibaan noqdo ilaahow cali jayta maanta nin macnaha ninka la yiraahdo dhul hawiyaha hadii la yiraahdo cali jayta nin maanta nooga sharaf badan ama nooga wanaagsan ma jiro cali jayta hadii la yiraahdo tuhun shabaaba soo galay ama shabaab uu la dhiil gareeyay ama shabaab wax la wadaagay hadii ay maxkamada soo taagan rabnaa waxaanu rabnaa inta dambe inay nabadgelyo hesho inay xushmad hesho inay xurmo hesho inay wanaag ku noolaato sarana karaamo inaan waxaan rabnaa aan mara hoosteer aan ninka loogu taqfal duleelin annagu maanta caldeer geeridiisa aan ku digto haynaa ku farxaynaa maxaan ugu farxaynaa caldeer madurku ka yimid maya annagu naga dhashay sax waa xaradkii hawiye sax waa ninka waa annaga meel durka noogama imaanin maxaan ku nacnay maxayna kala geeyay waxaana kala geeyay fikirka oo wato ma doonayno marka annagu mana rabno in ninka la yiraahdo sida banaansaan shabaab qof ay gashay inaan macnaha aan u taqfal duleelino ama aan saanay ahayd ka dhaco aan u dhahno taasna u gudbaa waxaan kala rabaa fariin aan meesha inaan ka gudbiyo ninka la yiraahdo xasan daahir waa oda 90 jir hadda hal dilo dhimayno dhiba kala loo geysan laakiin taleefanka dawladda inay ka qaadaan ugu baaqayna waa ka balaayada ka dhex furo haayo ee ummadda ninka la yiraahdo ilaa hadda waxay gelin shabaab wuxuu ka dhacdaa baraha bulshada dawladdu inay ninkaas taleefanka ka qaado taasna ugu gudbaa waxaan rabaa ninka la inaan soo noqdo la yiraahdo jeesu asiga laftiisa dawladda gaar ah u fiiriso dawladdu sida ay nimankaas taliyayaasha ay shalay ninka la yiraahdo tuhunku intuu gala ay baaritaan ugu sameysay jeesuna loogu sameeyo baaritaan jeesu laftiisa aan madax banaanayn jeesu ninka la yiraahdo meesha wanaag aan u joogin jeesu meesha daacad aan u joogin
jeeso waxaan u maleeyaa anugu amba dad ila badan oo ila mid hore ay u haystaan inuu shaqo loo dirsado oo meesha ka haayo raadadkeedina aan qaarkood aan aragno oo shaqadii loo dirsado oo meesha ka qabay inuu qayb kamid ah ka soo baxay qayb kamid ah oo waaga macnaha ku guda jiro wadiyaan u haysanaa waa runtaa baabuurka soo dhaafay jeeso oo cali jeyta lagu qarxinayo anigaba shaki ay ga galay jeeso shaqadii oo u aaday beled weynu ma aadin oo shabaab la dagaalo ee shaqa shabaab inuu ka qabto u aaday qaybtii horeysa waa ku guuleysay qaybii kalena waagu wadaa waxaa kamid ah qaybaha waaga wado inuu xawaadlay isku dhufto nimanka la yiraahdo gaal jecel waana shaqada shabaab hadda ay wadaan waa shaqada oo ka dhawaajiyay shalay waa shaqada ninka la yiraahdo loo dirsaday waa ninkaas meel shaqo ka haya shaqaha laga qabsado haddii laga qabsado inaa saa ka qabsaha taas anagu soo gudbaa waxaan rabnaa marka sharcigu siisa banaa inuusan xildhibaan ka baqin wasiir ka baqin raiisul wasaare ka baqin xasan sheekh maxamuud diir soo galo waxaan rabnaa inta la soo qabto la soo taago sharciga hortiisa ee uu yimaado dadkuna markaas aynan cadaalad helayaan nabadgelyo helayaan la wada nabadgelaa cid walbana ay karaameecisu ku noolaarta laakiin sharcigu hadduu midka miskiinka ah sabcooleyda uu ka adkaado midka hubaysanna uu macnaha alxamdulilah iyo gacmaha qaba waayo adeer wax suuraa oo jiraan waana mid dhibaatada haysata hadda noo macnaha sababtay ilaa 30 sano aan inta ugu socolaanahay waxa koos gariya waxay tahay cadaalad darro cadaaladu macnaheedu ma ahan marka in midkii miskiin oo amba xoogaa been yarada iska tabarar ka dhashay ama aan dhaqaale heli karin ama aan xildhibaan lahayn ama aan wasiir awood aan ku tiirsanayn sharcigu ka adkaado lama rabo waxaa la rabaa inuu sharcigu qof kasta qaban kariyo ibrahim waad santahay waxaan rabaa oo kale aniga inaan ku darsado ninkii hawiye ah oo ama taliye ciidan ha noqdo ama cali jeyto kale ha noqdo gudoomiyaha ha noqdo ama nuucu raba ha noqdo oo tuhun soo gala tuhun inta la baarayo oo la soo hubinayo beeshiisa inay ku kalsoonaato kiiska dowladda la wareegta cali jeytana lama wareegin qolo kale lama wareegin cid kale lama wareegin ninkaan la isxaaq wuxuu u dhashay waa taliyaha booliska ee ciidamada gobolka hiiraan u ahaa saan aniga ma jeclahay wuxuuna u dhashay beesha jejeelo u dhashay xamara looga yeeray ma xirna oo guri laguma nin fikaysanoo sida dadkii loo xira maahan su-aalaa la weydiinayaa nabad sugidii iyo booliskiyaan u yeertay siday waxaan ku dhaceen asagaana waajib ka saaran yahay sida qaraxyadan iyo waxaan usoo gudbay cali jeytana wuxuu yidhi anigu nimankaas faraa iiga godan ha la soo hubiyuu yidhi waana la soo hubinayaa beeshuu ka dhashoo kale sharciga lama kala leh sharciga lama kala leh cali jeyta ninkaana ka dhawaajiyey cali jeyta oo bilaabay xabadda nimankan hadduu qalad galo oo laga shakiyo tabtaasoo kale loo soo baaraya qof bili aadana iyo qabiil ina adeero iyo waxaas iyo way dhammaatay niman cadowaa lala dagaalaya tabtaasaa qof walba loo soo baaraya adaa ku watee Donald Trump leemay wuxuu gurigiisa la gelaya wadhaxdaasee Donald Trump madaxweyne Mareykanka muusan ahayn derbiga loo fuulay muusan ahayn guriga cad ma cadaan uusan ahayn oo macnaha dadka wadanka iska lahay muusan ahayn awood dilaana macnaha lagu galay maya sharciga ka awood badan asiga marka waxaan idiin sheegayaa reer hebel iyo qabiil iyo jufaan nahay iyo annakana lama yeeli kara iyo annaka saasaan iska ilaaban maanta cadow annakoo dhanna wada hayaan iska kicinayna qabiilkii jufadii lagu fahma xataa inay dul saaran tahay inay cadowga meesha ku haysa ayadu inay meesha ayadu cadowga ku kaalmaynayso wallahi bilaahi tallahi gaashaankaa loo daruuraya hal meelaan looga soo jeesanayaa haddeerba istoosi jeesow ninka la yidhaahdo jeesow aniga hadalkiisa waa dhegeysta si fiican u dhegeysta jeesow hadalkiisa anoo dambaabayn oo ilaahay ka cabsanaya oo aan u gafayn isaga waxaa iiga soo baxay jeesow inuu u yimid hiiraan inuu fashiliyo dagaal ka socda tabtaasaan anigu u fahma muhiimadda aan kala dhex baxay intaasay ahayd marka jeesow qori iyo boosh uusan ridi aqoon ayuu isku soo sawira cali jeyta waxaan leenahay jeesow xamar nooga celi bartiisu uusan ridi aqoon qaabkiisana uusan aqoon isku soo sawira jeesow bartiisuu ku laabanaya jeesow hadduu nin raga yahay oo dhig leeyahay oo dadnimo ku jirto oo damiir leeyahay $30,000 kuma qaateen kiiska ikraan ha ka hadlin $30,000 oo nabad sugidda ka qaadan jira inuusan kiiska ikraan ka hadlin baarlamaanka markuu hor istaago maxamed cabdulaahi farmaajo uu dhihi jira walaashiis dhiiggeedina wuu maqnaa in adeer saddexaad ay yihiin aamine maxaa cabdi gabdhihii ugu qiimaha badnaa ka dhinta gaal jecel oo ugu qiimaha badnaa aqoonta lahaa intaasna baarlamaanku dhex fadhiyay ma wuxuu ahaa meel sanad meesha ka dhex taagan muu ahaa maantay
قرية سوقة قال شعر حرينا نيو قال شعر محرين كرت تشيسو دون هذا ضد هذا مرهران برنا نكات هاي مرهران كبرنا هذيك الروح حاجة إسا صبرت ودب إسكو سود دقيسة تافيعة نكات هاي قديت مليه دقال كان هيرانو لنا وحاكم مسؤول على شيء برتو رمون شباب كتير إنكران برتو رمون كلا دقال كرا شباب إنه هبل يريه هبل ينواس كل مات عيدنا حس الشيخ أصول دري عيدنا كابر يماي وحكا قلدنا قاب لو صحيليين وحي كقلدنا قاب لو صحيليين ريه هيران وانا أصدق عدين تدور على وضع الشاتين ديجان كاي كوضع الحية نكاس دا عدا وأسوق قدومية وعن منين إنه عفتك لو قرية بوش قاتو أو قاب قدومية كشقية سوى منين أو دور كنت قالوا قرية بوش قاتو عبد بلق يسكراعة وأنا أقولاتان لبنتي سنة سيسين أو أفري لا تنسى هل سروال وتا أفر بلود هل سروال وتي وعن لقيا بين بإنه أنت أسبق بيسن بينا أسعرك عاد بيا عبي وأنا يشان أمر كيسة وحسن ينا عاد يشان وحنا قرب تاجر على شيتي هويو من أقرب تاجر عد كيسة هل هذا لو هذا والله بالله تالله دياردي وحي أنتي قاعدة دويرة ده كان أول لقى قاعدة إلهي بوجي قدرنا مرة قدرنا أهيلين ما يعني حقا أهيلين يا نكي قلدنا هاي سقفته إبراهيم هي ما يصعب هرت وحي عندي لا أنا هاي مال قرآن وادكتي وأنا قد ما يسيء وأنا واسمع له حيت هذا أنا دم الله ما هلا ما حد من الله هداه ninka la yiraahdo waxa dheelay anigu sideeda banaan cali jeyte waa qof bina aadam qalad waa gali kariya laakiin qalad haduu galo macnaheedu ma ahan in inta idaacada la soo istaaga la yiraahdo gaal jacali xawaalad isku diraysa xawaalad janjeelad isku diraysa macna la yiraahdo maahan cali jeyte haduusan dadka meesha jooga u diirnahaynin adeer guriga gobolka iska dhex jeefay staffna waa lahaay inta ira banaanka asiga soo mukeefkiisa iska dhex badilahay maxaa ku kallifay inuu ninka la yiraahdo alqoolaya maxaa tirada iyo moqore inta ka dhaxaysa maxaas oo ninka la yiraahdo tuuto oo alxamdulillah iyo 20 sano 30 sano ka hor siibay dib inuu u gashado maxaa ku kallifay waxa ku kallifay dadka la dhibaateeyaa dadkiisoo ka nacaa cali jeedsiisa banaan dusho noo wada saaran yahay hawiyo dhamo dusho saaran yahay Soomaaliyo dhamo dusho saaran yahay adduunka dhamo dusho saaran yahay horta waa kaas warkiisa xaqan dhiga waxa soo haray nimanka la yiraahdo gaal jacel قال جعل أرتو وحيهين يهركيهين وحواي ملاي مايو Soomaali هذا عد لوجا شيكا إنه جرتو قال جعل علشان نينك اللي هركيهين ولا يقع وحي قلاين وحي جويان Soomaali وقال جعل واتقانا تاريخ الحمد لله قال جعل وحي لا هي الحمد لله تاريخ يبلغ سوجرينا وبرا Soomaali دي بالبل يجف الله لك الله كلا بحبحو أي سن لهين أي لا هاي إن هذا معناه ضد ما أنت لبرنا باهي لو ما قبض أو تاريخ قال جعل تقوى وضيقانا أنت بدل شيء حسن برسم بوقتيسه وحال وجد جرى الأميرة يميسس كان وجد جرى الصومالية سألا أرسل جرى تاريخيسه تاسنا داروا تاسنا وقبحها وحصهري نك اللي رادو جيسو ده كل وحواي نك رجعه سيدي بنان دمرك يا عرورتا ninka raga hadii xaqooda laga soo maro wixii laga waayo waxa waaye waa waxaan laga raadiyay Soomaalida waxa waaye waxay yiraahdaan dad reer miyiga waxay yiraahdaan ninka dagaalkiisa tilmaha naaga laga dilay yiraahdaan arxamarkuna waxay yiraahdaan ninka dagaalkiisa rabto doorada iga cisha la yiraahdaa sax waxa waaye marka daar amin jeeso gabartiisi aanta lagu hoos dilay oo ninka la yiraahdo oo alxamdulillah deecaankeedii caday sax ninkii inta gabartiisa lagu hoos dilay in adeerkiisa oo odageedii yahay nabadoonkeedii yahay xildhibaankeedii yahay ay ku hoos dhimatay oo dheecaankeedii oo agay carawkeedii oo agay waxa waaye gaal jacayl malay ma jacayl u qabtay kursiga mar labaad ugu dhiibatay ee waa lagu qasbay sax hawiyo dhanna ninka la jacayl u qabo wax ugu ma dhiiban waa lagu qasbay sax taas marka taas soo gudbo ninka taas daanta soo gudbo waxaan leeyahay cadow Soomaaliyo malahan aan ahayn nimanka la yiraahdo shabaab waxyaabaha ninka la yiraahdo lagu dhex meeraysa la iska dhaafo anagu sideena banaana marka aan ku dhaganahay wiiha aan ku dhaganahay dhulka horta anagu inaan isxurayna kadibna Soomaali aan macnaha ayuu tagna wax la wadaagna qorsheenayna rabnaa mooyaane ma jirto colaad
colaad amba alxamdulilah iyo cilad aan macnaha dad kaleentod u qabna ma jirto laakiin soomaalina arrinteeda waxaan u soo jeesinaynaa amba aan ka hadlaynaa amba wax ka dhahaynaa bal horta annagu marka aan culayska aan iska dul qaadno waxaa laga yaabaa dadka qaar inay macnaha ninka la yidhahdo hawiyaha aan dadka aan ku dhegan yihiin xay yihiin xoogaa siyaabo kaleentod ay u fasiraan laakiin qofku markay gurigeeda ay habaysato ay guriga kaleentod ay ka hadli kartaa annagu horta hadal kalaa noo furnaynba sax marka waxaan leeyahay dagaalku ninka la yidhaahdo bilo waaye dhammaadkiisuna insha allahu tacaala waa dhow yahay guushana insha allah waan rajeynaa mar dhawadii la yidhaahdo aadaad u mahadsantahay ibraahimow waad bixi kartaa waana ku fasaxay kheyr allah ku siiyo aniga ruuxayga inaan kusii jiro wax badan ma sii rabo waxaan rabaa dadweynaha sharafta leh oo halkan ku xiran inaan maaragta u sheego guushanadii way soo dhowaatay nimankii afka duubnaana waa naga kaceen waana iska kicina ilaahay subxaanahu watacaalaana afkiisu ka yeersiiye xasan sheekh maxamuud iska dhiciye nimankan ugus la yidhaahdo waana amarkiisaana la qaata ninkii maanta hawiyaha oo ka hara oo ka jiifta dagaalkaasna waa nin raba inay cadowga dul deganaadaan ayakana ka mid ah ninkii soo hadla oo ayaka ka soo hadal siiyaanna waxaanu arkaynaa nin maaragtay awalba ayaku ay haysteen nabadoon beena aniga hasaa kay dhigin ugaas beena aniga hasaa kay dhigin nin kale oo aan maaragtay iyaku ay samaysteen nabadoonnadii iyo ugaasyadii iyo beeldaashiyaashii caaqiladii meeshay joogaan waa la yaqaanaa qabiil walba meesha u jooga waa la yaqaanaa niman ay haystaan oo ugusa oo kuwaas markay soo gaari waayeen iyaku ay ka hoos sameeyeen haddii laga soo hadal siiyo annaku waxba nagu soo kordhin mayso waxaa farxad gelinaysa hiinraagga iyo cabaadka ka soo baxaya iyakoo dhan odayaal duqoobi inay ka hadal siinayaan intay qoryo u garaariyaan inay xataa islaamihii ka hadal siin rabaan ka soo dhow meel ay ku nastaan iyo meelay galaana lilaahyihiin ilaahay subxaanahu watacaala ahaana guushaasna siiyey waana tegayaan afkoodeen waxay ka dhaheen dhul hawiyo waa ka guuraynaa koonfuraan u guuraynaa yaana laga daba imaan hawiyo naga ballanqaaday inayna naga daba imaanin laynka hari maayo meel laynkaga haraayo bataatanba ma jirto meel kastaa laynka dabagelayaa ilaahay idankiisa meel laynkaga haraayo ma jirto waa laynka harayaa xasan sheekhna inka hari maayo daroontiyaa idin daba socota bayrakdaara idin daba socota nooc walbaa idin daba socda waxaa fududaanaysa baabuur dambe inayna raacin ay saas idiin fiirsanaysa daroontii meel kasta aad joogtiin labadii baabuur isla fiirshana kor in laynka qarxinayo aa fududaanaysa waxaa fududaan doonta shacabka soomaaliyeed oo dhan inay ku dhiiradaan ay idin soo sheegaan oo yidhaahdaan laba isla socoto hadda baabuur fuusha halkaasay maraysaa sida kuwo horeba loo soo sheegay ilaahay subxaanahu watacaala mahaddaas u sugnaatay madaxweyneha afkiisa ka yirayna mahaddaas u sugnaatay kuwii ka horreeyana hadday la dagaali lahaayeen nimankan way cirib tirmi lahaayeen maantana way dhammaan lahaayeen ikhtiyaaray xil guntade waxaad ugu imaanaysaa xaqiiqda iyo runta ka gaban maayo nimankan kana cabsan maayo waana iska dhicinaya anoo saas ahaan wejigayga la imid weyne maantana inay iyagu halkan iga wada fiirsanaya laga yaabaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuuse iguma samayn karaan waan idin salaamayaa waqtigaa igu yar update kastana waa idiin soo gelinayaa adinkana waxaan ka codsanayaa muuqaal walboo xil guntadoo aragtiin inaad sheerta ku qabatiin laygaraysiin meel walba gelisiin sababtoo ah waxaan iska dhicinaynaa cadow afkiinaan ku hadlayaa adinkaan idiin hadlaa shacabka soomaaliyeed aan rabnaa inaan cadow ka dulkicino sheertaa kama suugin saxaafadii ka cabaadeen baraha bulshaday ka cabaadeen waadna maqlayseen odayaasha hadlaya dadka annaka naga dhashay ha noo soo hadleen beesha gaal jecel niman laga soo hadalsiyo beesha gaal jecel sheeganaya isla dhahaya qoraalada noo soo badiya waa laynka badiya kuwo kalaan ka harsan la'noo ka hoyan la'naha oo qabiilo kala waa baraha bulshada ka qaylisiiya xataa runtaan sheegaynaa waa iftiiminaynaa xataa baraha bulshada waxay fududeeyeen meel kasta ay ku dhuumanayaan in lasoo sheego meel kastay ku dhuumanayaan qof shacaba oo isqarinaya inuu hoos nooga soo baaso halkaasay ku jiraan meel heblay ku jiraan halka ay noo fududeeyeen alxamdulilah rabbilcaalamiin aad iyo aad aa idiin salaamaya akhiyaaray asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu